kusoo dhawaada filim lasoo koobay maanta nagala soco filim 1985 ka dambeeyey oo ah cilmi baaris cilmiyeed oo la magac baxay dhulka aamusan ka hor inta aan la socono in ay jiraan qas wadayaal sheekadeen waxay ku bilaabantay nin lagu magacaabo Zack Hobson oo ka kacay guri motel ah oo uu waayay wax saldhig ah. idaacada waxa uu wacay soo dhaweynta laakiin qofna uma jawaabin. Zack ka bacdi baabuurka ayuu ka haystay oo u istaagay in uu batrool ka helo goob adeega oo aad moodo in aan cidina ilaalinayn. Waxa uu eegayaa goobta shaqada ee dhismihii oo dhan balse cidna kamuu helin. Jikada intuu ku sigtay inuu qalalo albaabkii musqusha wuu xidhan yahay laakiin qofna kuma jiro. Wuxuu ka haystay wadadii madhan isagoo hoonka garaacaya laakiin ma jirto cid aragta. Wuxuu soo istaagay guri oo u fiirsaday. Waxa uu jabiyay muraayadii albaabka dambe ee ku taalay si uu u helo gudaha laakiin gurigu waa madan yahay. Waxaad moodaa in qof kasta la waayay markii uu wadadii weyn soo maray. Waxa uu ku sigtay in uu ku dhufto gaadhiga dayacan ee uu ka wacay raadiyaha baabuurka ee labada geesood ah balse wax jawaab ah uu magaalada soo galay ma jirto. balse mar kale ma jirto cid arkaysa oo kaliya baabuur faaruq ah oo halkan jooga. Waxa uu halkaa ka helay burbur dhisme oo aad u badan oo gubanaya. Marka uu u fiirsadana waxa aad moodaa in diyaarad rakaab ah ay halkaas ku dhacday balse ma jirto wax meyd ah ama ka badbaaday. Seth Travis xarunta cilmi baadhista dayax gacmeedka ee uu ka shaqeeyo balse mar labaad waxa ay u muuqatay cidla in uu furay kombuyuutarka si uu ula xidhiidho xarumaha kale ee cilmi baadhista ee adduunka balse midna kama jawaabin. Waxa uu kasoo daabacay qoraalkii madbacada oo wax ka sheegaysa in lasii wado toosh mashruuca sida qorshuhu. Wuxuu u dhaadhacay heerka hoose ee hoose wuxuuna eegay kombuyuutar kale oo leh operation toosh completed. Zack wuxuu tegayaa qolka kontaroolka grid wuxuuna ku arkay qof meesha jooga oo la yiraahdo Baron laakiin markuu kursi ku rugmaday wuxuu arkay waalid aad u dhintay oo bura indhaha iyo gacmaha gubtay. isla markiiba ogeysiis ayaa sheegaya in ay jirto khatar shucaac ah oo shaybaadhka waa la xidhi doonaa. Zack wuxuu ku orday wiishka laakiin aad buu u daahay. wuu xidhan yahay. waxa uu qorsheynayaa waxa uu ka dhex helay gaasta ku jira qaar ka mid ah silsilado waaweyn oo gaasta gubanaysa. waxa uu shidiyey gaaska oo shiday gaaska kadibna uu gabaad u cararay. Zack waxa uu helay qalab wax lagu duubo ay ku jirto hadal uu sheegay qof sheegay in ay jirto xog la qariyey oo la xidhiidha tooshka qaliinka. waxa uu duubay codkiisa isaga oo sheegay inuu aaminsan yahay in uu yahay qofka keliya ee ku hadhay nolosha dunida ka hor inta aanu dhammayn duubistiisa. dhalooyinka gaasta ayaa ku qarxay saameyn xun. waxa uu helay meel uu baxsado oo uu kasoo fuulay xarunta hoosteeda. Zack ayaa helay qof deegaanka ah idaacad kadibna waxa uu galay qol lagu baahinayay oo uu u diray fariin uu ku qoran yahay magaciisa iyo taleefankiisa. qof kasta oo dhagaysanaya si degdeg ah ula soo xidhiidho. kadibna waxa aanu aragnaa Zack oo magaciisa iyo nambarkiisa ku sawiraya boor weyn oo uu fadhiistay guriga uu ku sugayo balse maya mid ayaa wacay. kadib waxaan aragnaa Zack oo wata baabuur booliis oo ku hadlaya codbaahiyaha si qof kasta u soo baxo laakiin ma jiro qof arkaya. waa xitaa da'ay oo roob da'ay ayaa waxa aanu helnay Zack oo dhex socda wado magaalada ku ciyaaraya saxoobone. kadib isaga oo keligii fadhiya gurigiisa waxa uu sugayay oo uu dhagaysanayay idaacadiisa. waxa uu go'aan ku gaadhay in uu helo guri suuqgeyn ah oo uu subaxda dambe ku sugnaado. waxaanu aragnaa Zack isagoo kusoo baraarugay guri weyn oo aad u qurux badan ku yaal meel gaar ah magaalada ka mid ah. isagoo cabaya shambagne iyo ukun quraacda ayuu arkay iftiin lama filaan ah. hadda Zack wuxuu u socdaa xoogaa madadaalo ah. waxaan aragnaa isagoo baabuur dhex maraya suuq laga dukaamaysto qaar ka mid ah dukaamaysiga laakiin dabcan wax lacag ah oo uu ka bixin waayey. dukaanka alaabta lagu ciyaaro uu ku ciyaarayo tareenada ay carruurtu ku ciyaaraan ayaa fikrad siinaysa. hadda waxaanu aragnaa isaga oo tareen dhab ah kaxaynaya. marka xiga waxaanu aragnaa isaga oo ciyaaraya snooker iskana dhigaya inuu qof kale kula ciyaarayo. qolka jiifka ayuu bilaabay inuu khiyaali sameeyo oo isku dayay qaar ka mid ah dharka dumarka. hadda waxa uu daawanayaa muuqaal nin ka hadlaya aragtiyaha awoodeed ee uu haysto. dhinaca kale Zack ayaa kor u qaaday qoriga oo ku qarxiyey muraayada tiigasa itime isagoo gadaal uga soo booday kursigii. hadda Zack wuxuu bilaabay inuu lumiyo dhagartii oo u maleeyo inuu qof ka daba joogo. ayuu haddana mala awaal u dhigayaa cajalado maqal ah iyo meelo uu kasoo gooyey talooyinka madaxdii hore ee adduunka. cawska hore ee uu taagnaa balakoonka sare isaga oo iska dhigaya in uu yahay madaxweynihii dhulka. isaga oo taagan balakoonka oo ay ilmadu meel walba ka dhacayso korontadu. waxa ay dhacday subaxii dambe. waxa aanu arkaynay Zack oo dhex wareegaya garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro isaga oo xidhan shumis dumar ah. hadda waxa uu si degdeg ah u galay kiniisad isaga oo qori sita qof raadiyo. malaha ilaah waxa uu hortaagan yahay isku tallaabta isaga oo ku hanjabaya in uu dili doono ilmaha in aanu soo bixin mooyaane. kadib waxa uu bilaabay in uu toogto saliibta. hadda waxa uu u malaynayaa in uu ilaah yahay. waxaan u malaynayaa in uu dhagartii ka luntay. hadda waxa aanu aragnaa Zack oo kaxaynaya qodax weyn oo dhisme ah isagoo ku dul ordaya gaariga carruurta yaryar. waxa uu isleeyahay waxaa dhici lahaa haddii canug yar uu ku jiro gaariga carruurta uu ku jiro. waxa uu ka fiirsaday inuu istoogo. kadib waxaan aragnaa Zack oo ku dabaalanaya xeebta ka bacdi wuu isnadiifiyey. waxa uu dejiyey gurigii korontadii isaga oo wata matoor weyn oo la qaadi karo isaga oo soo ururinaya sawaxan beero ah. waxa uu u malaynayaa in uu sanqadh maqlayo balse malaha waxa uu mala awaal yahay. hadda waxa aanu aragnaa Zack guri cusub oo badda agtiisa ah. waxa uu eegayaa kombuyuutarka maadada kimikalka ah iyo xaaladda deegaanka ka baxsan. si lama filaan ah ayuu u maqlay sanqadh kadibna u soo jeestay. waxa uu arkay gabadh albaabka taagan oo baastoolad sita oo ay naagtii la odhan jiray John u sheegtay in aanay dhab ahayn. markaas ayay soo gashay oo mid kastaaba ay isku duubeen. kuwa kale oo aad ugu faraxsan in ay helaan qof kale ayay fadhiisteen oo ka sheekeeyeen wixii ay la kulmeen markii ugu horreysay ee ay ogaadeen in qof walba meesha ka baxay. markii ay hadlayeen John waxa ay ku seexatay fadhiga subaxii dambe. waxa ay kor u qaadeen gaadhigii tamarta oo ay sameeyeen hadal yar oo John ka haystay waayo Zack waxaa hungofar kasoo gaaray jambagne oo aad u badan habeen ka hor inta aysan helin goobta shilku ka dhacay oo nin uu dhex maray muraayada gaarigiisa iyo
haweenay geeriyooday isagoo isku dayaya inuu gargaar ka waco raadiyaha laba geesoodka labaduba waa dhinteen waxay habeennimadii istaageen motelka halka Saj uu karinayo casho waxay ka sheekeeyeen suurtagalnimada in dad kale oo noola helo subaxdii dambe waxay heleen baabuur uu ku socdo Jonas waxayna labadooduba hal mar raadiyeen dad kale labadooduba waxay la kulmeen dareen yaab leh habeenkaas waxay ku fikirayeen wixii dhacay subaxii xigay Saj wuxuu ku soo toosay qol motel ah telefoonka oo garaacaya John wuxuu iska dhigayaa inuu yahay soo dhaweynta albaabka ayay ka furtay oo sariirta u keentay quraacda Saj waxaad moodaa inay habeenkii isla soo hoydeen kadib labadooduba waxay wateen dad raadinayay mar kale halka John uu eegayo isbitaalka Saj oo taagan yahay oo duubaya xog ku saabsan isbedelka ku yimid dharka caalamku markii uu Saj u kaxaystay la kulanka John waxa uu arkay wadooyin go'an markii uu ka soo noqday haad uu gaadhi weyni ka soo baxay oo jidkii ka xidhay isagoo aad u eegaya nin baklaafa wata qori ayaa la soo booday oo ka haystay Saj waxa uu u sheegay in uu kaligiis yahay balse John ayaa ka wacay raadiyaha kadibna ninkii la odhan jiray Ab waxa uu ogaaday Saj in uu been u sheegay waxa ay u wada tageen si ay u helaan John marka uu Saj u sii socdo si uu ula kulmo John Abby oo qarinaya tiir gadaashiisa balse markaas ayuu ismuujiyaa markuu Abby gartay inaysan khatar ahayn ayuu xaggooda u soo socdaa way is habeeyeen hadda waxaynu aragnaa iyagoo wadadii ku wada raaxaysanaya habeenkaas oo ay dab isku soo urursadeen Abkuna wuxuu u sheegay Saj iyo John saaxiibkiis iyo naftiisa oo dagaalamaya iyo sida uu jirkiisa uga tagay oo uu dagaalka kor ka eegay sida uu iftiin ugu socdo balse markaas ayuu miyirsaday saaxiibkiis oo maqan yahay Jonas ayaa sheegtay in ay la kulantay wax la mid ah Saj markii uu ka soo kacay sariirta oo aad moodo inuu qaatay xaddi xad dhaaf ah oo kaniiniyada ah mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la kulmay geeri ku dhow waqtiga saamaynta taas oo sababtay in qof kasta oo kale la waayo kadib waxay heleen haween dhammaan iyo Abka waxa ay ku ciyaaraan piano halka Saj iyo John ay dhaansanayaan sariir ayay aadeen balse John ayaa ka kacday si ay u hesho Abby oo aan sariirtiisa ku jirin intay socod u tagtay waxa ay aragtay isaga oo ku tukanaya qabri u dhow si ay sariir ugu laabato subaxii dambe Saj waxa uu daraaseeyaa dhaqdhaqaaqa qoraxda waxa uuna aaminsan yahay in qoraxdu ay dhawaan soo dunto dhanka kale John iyo Abby ayaa ku soo baxay orodka John waxa ay Abby uga sheekaynaysaa aragtideeda saaxiibtinimada kadib waxa ay weydiisay sababta saaxiibkii uu isku dayay in uu dilo Ab waxa ay u sheegtay in ay sababtu tahay wuxuu dilay xaaskii saaxiibkiis ayay weydiisay sababta uu u sameeyay wuxuuna u sheegay inay lama huraan tahay hadda waxay ku arkaysaa muuqaal ka duwan hadda waxaan aragnaa Saj oo soo raraya gaadhiga si uu uga tago wuxuu isku dayay inuu wax u sharaxo John balse weli way ka xanaaqsan tahay Abby Saj iyo Abby waxa ay leeyihiin erayo ku saabsan cidda mas'uulka ka ahayd marka Saj ayaa ku booday gaadhiga oo ka haystay Ab ka daba tagay isaga oo wata gaadhi kale kadibna John ayaa raacay labadoodii oo gaadhi ka yar watay iyaga oo wadatay Abby waxa uu dhageysanayaa duubista Saj ee ku saabsan isbedel ku yimid qoraxda Abby wuxuu ku orday Saj wadada kadibna John ayaa qori ka qabsaday gaariga xamuulka oo ku toogtay meel agtooda ah si ay u joojiyaan dagaalka sida ay saddexdooduba wadada u mareen si wada jir ah Saj waxa uu sharaxay in Mareykanku ay ka qariyeen macluumaadka mashruuca uusan ku kalsoonayn Saj sababtoo ah uma uusan sheegin oo run ahaantii u sheegay khatarta aan ku aragno xarun uu Saj ku jiro isagoo eegaya xogta kombiyuutarka waxa uu u sheegay John in uu aaminsan yahay in saamayntu ay mar kale dhici doonto beri subax 6 subaxnimo si lama filaan ah waxyaab leh ayaa u dhacay John waxa uu waayay Saj ama Ab labadooduba waa la waayay kadib dhowr daqiiqadood arrimuhu caadi ku soo noqdeen waxa uu qorshe leeyahay hadda waxa aanu aragnaa iyaga oo albaabka ka qarxinaya daar weyn oo ku dhex yaala daashka waxa ay ka heleen tiro badan oo galagniti ah oo sanduuqyo ah si ay ugu raraan gaadhi weyn habeenkaas waxa ay u kaxeeyeen xarunta cilmi baadhista ee dayax gacmeedka Driver John oo Saj uga waramay runta saaxiibkii Abka xaaska saaxiibkiis ayaa jeclaaday Abka balse Abka wuu diiday sidaas darteed way isdishay saaxiibkeed Abka ayaa ku eedeysay Ab dhimashadeeda waxay u yimaadeen gaadhi shidaal oo wadada xidhay balse Ab ayaa wadada ka saaray dabadeed way sii socdeen markii ay u soo dhawaadeen qalabkiisa waxa ay u sheegeen in xarunta cilmi baadhistu ay u dhaqmayso sidii foornada microwave oo haddii gaadhiga galaydu aad u soo dhawaado laga yaabo in uu isla markiiba qarxo waxa ay gaadhigii yar wada socdeen ilaa taawar yar oo cilmi baadhista u dhow Station Saj waxa uu u sheegay in uu magaalada ku soo laabtay qalab uu ku qaadi karo baabuurka isaga oo kaxaynaya kaligiis waxa uu ka soo tagay John iyo Ab munaarada waardiyaha kadib waxa ay maqleen gaadhigii oo ku soo socda in ay u soo yaacaan banaanka si ay u arkaan Saj oo gaadhiga hoos u sii socda xarunta cilmi baarista markii ay soo dhawaatay dhulkii ayaa dariiqa siinaysa oo qolkii gaadhiga xamuulka wuxuu ku dhacay xarunta Saj wuxuu gaaray daminta dabka wuxuuna dejiyaa walxaha qarxa cilmi baarista saldhiga ayaa burburay waxaana aragnaa wax u eg saamayntii oo mar kale dhacaysa wixii ugu dambeeyey ee aan aragno waa Saj oo ka soo toosay xeebta meel ay ka samaysan yihiin daruuro yaab leh oo samada ah iyo Saturn oo kor u kacaya gadaashiisa waa Saj runtii dhintay mise isagaa jannada ku jira muxuu sameeyaa